dowladda Mareykanka ayaa taageertay wada hadallada u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab. Maxamed Yamani ayaa inoo haya warbixintaas. warar si hoose loo helay ayaa sheegaya in Mukhtaar Roobow Abu Mansuur uu si hoose wada hadal ugula jiro dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana dowladda Mareykanku ay arintaasi garwadeen ka tahay kadib codsi ay ka heshay xukuumadda Soomaaliya. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa maalinimadii Arbacada ahayd sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay si degan liiska argagixisada uga saartay Roobow isla markaana ay meesha ka saartay abaalmarintii ay madaxiisa dul dhigtay. sanadkii 2008 ayay dowladda Mareykanku hogaamiyahan ka tirsan Al-Shabaab dul dhigtay $5 milyan ciddii soo sheegta macluumaad isaga ku saabsan. sida laga soo xigtay barta liiska dadka sida gaarka ah loo doonayo oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Roobow ayaa haya 3 shaqo oo kala ah hogaamiyaha ruuxiga, taliye ciidan iyo sidoo kale afhayeenka rasmiga. waxaana isfaham waa uu dhexmaray isaga iyo hogaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, taas oo keentay in uu markii dambe ka goosto kadibna uu wada hadal la furo dowladda federaalka ee Soomaaliya. sida ay daabacday wakaaladda wararka Associated Press, Mukhtaar Roobow ayaa sanado badan hogaaminayay dagaalo lala galay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika oo Soomaaliya loo diray sanadkii 2006. kadib markii uu ka goostay Al-Shabaab ayaa waxaa dagaal dhex maray ciidamo kala taabacsan Mukhtaar Roobow iyo Axmed Cabdi Godane. mid ka mid ah dagaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay rag aad ugu dhowaa Abu Mansuur oo ay ka mid yihiin 2 nin oo Soomaali ah laakiinse ku dhashay Mareykanka oo la kala oran jiray Umar Xamaami iyo Ibrahim Afqani. sida lagu qoray wakaaladdan, Mukhtaar Roobow ayaa da'da jira ku dhawaad 50 sano waxaana uu ku noolaan jiray dalka Suudaan kadib waxa uu wareegay Afghanistan halkaas oo uu tababaro kula qaatay ciidamadii Al-Qaacida ee halkaasi ku sugnaa. waxayna ahayd ka hor intaan Osama bin Laden qorshayn weeraradii 11 Sebtembar 2001 lagu qaaday Mareykanka. sida uu sanadkii la soo dhaafay soo saaray xarunta baarista istiraatiijiyadda Afrika ee ku taala magaalada Washington, Al-Shabaab ayaa aasaasantay 20 sano ka hor xilligaasi oo ay Soomaaliya ka jirtay iska horimaadyo u dhaxeeya beelaha kadib markii meesha laga saaray dowladii Maxamed Siyaad Barre. sanadkii la soo dhaafay weerarada ay geysteen Al-Shabaab ayaa waxaa ku nafwaayay ku dhawaad 4,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ciidamada dowladda, kuwa AMISOM, halka intooda badanna ay yihiin dad shacab ah. sida ay xaruntan sheegtay kadib hanjabaadii Donald Trump ee ahayd in ciidamada Mareykanku ay soo afjari doonaan ururada argagixiso oo ay ku jirto Al-Shabaab isla markaana dowladda Soomaaliya ay ku baaqday cafis iyo wada hadal ay la galayso Al-Shabaab ayaa waxaa bilowday wada hadallo ay hogaamiyaasha Al-Shabaab la galayaan dowladda Soomaaliya, taas oo bilow fiican u noqon karta deganaansho ka hirgala Soomaaliya.